caawa waxaan idin wadaa xigmad ku saabsan dardaaran, laakiin yaa loo adeegsanin xigmaddan waddo qaldan. xaasidnimadu ma waarto. ogow, waxaan ula jeclaystay qof walboo dhibana ah inuu wax ka baxsado. xigmaddan ayaan ugu talagalay, balse uguma talagelin dadka in lagu gumaado. noloshu waa sida badda oo kale. waxay noqon kartaa mid deggan ama mid qalafsan ama mid adag, laakiin aakhirka mar weliba way qurux badan tahay. noloshu ma laha meel fog. kac oo adiga isbeddel. nolosha guusha waa natiijo toos ah oo laga helo isticmaalka awoodda fikirkaaga wanaagsan. daqiiqad keliya oo farxad run ah ayaa ka awood badan cimriga murugada. qofka guushiisu waxay ku xiran tahay dadaalkiisa, balse wuxuu qabanayo inuu sheego lama rabo. ilan wuxuu guusha ku gaari lahaa hadduu sheego. waxaa laga yaabaa qof kale inuu ku shaqaysto fikirkaas oo asiga aaminsan yahay. markaas kadib wuxuu bilaabayaa dadaal, wuxuuna qaadanayaa go'aan aan ka soo noqosho lahayn. qofkaas waxaa u suurtogelayso guushiisa inuu gaaro. dadweynuhu waa iga su'aal. waa inaan isweydiinnaa, muxuu ku gaaray qofkaas guusha? waa su'aal oo qof walba isweydiinaya. jawaabta ugu fudud ayaa waxay tahay ama noqon karto qofkaas go'aanka halista ah uu qaatay. sababtoo ah haddii aad go'aan qaadato meeshaad rabto waad gaaraysaa xaqiiq. qof weliba oo jecel inuu go'aan qaato, hal mid ayaan ugula talin lahaa: walaal, maskaxdaada oo keliya adeegso. hadalkaada oo keliya ha socdo. waad arki doontaa go'aanka aad qaadatay guusha uu leeyahay.